Macallin ayaa fasal wax ka dhigaya. Intuu cashirka ku jira ayuu banaanka u soo baxay si uu telefoon u qabto. Isla markii uu qolka ka baxay, dhammaan jaamacadda waxaa ka bilaabmay qaylo iyo sawaxan. Wuxuu daaqada ka eegay waxa dhacay, wuxuuna arkay in fasalkii uu isku bedelay fowdo. Qaar ka mid ah ardayda ayaa si waali ah u weeraraya ardaydii kale. Macallinku wuxuu dareemayaa in khatar weyn jirto. Isla markiiba wuxuu go'aansaday inuu cararo. Wuxuu si dhib yar uga soo degay jaranjarada, laakiin qof cudurka qaba ayaa gadaal kaga soo booday, wuuna qaniinay. Macallinkiina wuxuu bilaabay inuu miyirkiisa waayo. Markuu gurigiisa gaaray, wuxuu weerarayaa xaaskiisa. Xitaa ilmihiisa oo 2 sano iyo bar jir ah kama badbaadin. Bani'aadamku waxay dhowaan ogaadeen in tani tahay nooc cusub oo fayraska raabiyada ah. Qof kasta oo uu qof cudurka qaba qaniino, muddo 90 ilbiriqsi gudahood ayuu isku bedelayaa qof cudurka qaaday oo rabshad badan oo dhiig u ooman. Fayraskuna wuxuu ku fidayaa xabaare waali ah. 2 sano gudahood musiibadu waxay qabsatay dunida oo dhan. Dadkii badbaaday waxay gabaad ka dhigteen meel ay ciidamadu ilaalinayaan. Waxay ku nool yihiin godad weyn oo dhulka hoostiisa iyagoo ka dhuumanaya dadka cudurka qaba. Laakiin si ay mar kale dusha sare ugu soo laabtaan, waxaa jira hal shay oo ay khasab tahay inay helaan: qofkii ugu horeeyay ee fayrasku haleelay. Qofkan ayaana loo yaqaanaa patient zero, waana qofkii ugu horeeyay ee qaaday fayraska. Difaaca jirkiisa iyo unugyada difaaca ee dhiiggiisa ku jira ayaa laga yaabaa inay noqdaan furaha daawo lagu sameeyo. Saldhiggu wuxuu arrintan darteed u sameeyey koox cilmi-baarayaal ah. Morgan wuxuu ka mid yahay cilmi-baarayaasha. Markii cudurku qarxay, isaga iyo xaaskiisa Janet labadaba waxaa weeraray dadka cudurka qaba. Janet si buuxda ayuu cudurka u bedelay, laakiin Morgan ma uusan isu bedelin. Taasna waxaa sabab u ah unug difaac oo dhif ah oo dhiiggiisa ku jiray. Arrintan waxay siisay awood aan caadi ahayn. Morgan wuxuu la xiriiri karaa dadka cudurka qaba. Awooddan ayaa noqotay mid muhiim u ah raadinta patient zero. Saldhiggu wuxuu si joogto ah tar ugu jiraa howlgallo lagu soo qabto dadka cudurka qaba si loo su'aalo. Morgan ayaa qaabilsan su'aalaha. Intii lagu guda jiray baaritaanadan, Morgan wuxuu ogaaday daciifnimada muhiimka ah. Maskaxda dadka cudurka qaba ma awoodo inay si caadi ah u dhageystaan codadka muusiga. Muusigu wuxuu u keenaa xanuun aad u daran. Sidaas darteed, ka hor su'aal kasta oo la weydiinayo, Morgan wuxuu daarayaa muusig aad u dheer si uu uga dhigo kuwa aan awoodin inay iska caabiyaan. Laakiin inkastoo baaritaano badan la sameeyey, kooxda weli wax raad ah kama helin patient zero. Qabashada dadka cudurka qaba waxay inta badan sababtaa in askar badan ay naftooda waayaan. Colonel Knox waxaa sii kordhaya xanaaqiisa iyo niyadjabka. Mararka qaarna xanaaqiisa ayuu kula dhacaa dadka cudurka qaba ee la soo qabtay. Iyadoo la adeegsanaya unugyada difaaca ee Morgan, Dr. Jean Rose waxay soo saartay serum ka hortagaya fayraska. Serumkan ma bogsiin karo qofka cudurka qaaday, laakiin wuxuu yareyn karaa tirada fayraska ku jira jirka. Waxa kale oo uu gaabin karaa xabaaraha uu cudurku ku fidayo, isla markaana hoos u dhigi karaa rabshada qofka cudurka qaba. Laakiin serumku wuxuu leeyahay hal cilad oo weyn: saameyntiisu ma sii jirto muddo dheer. Gina waxay ku tijaabisay jiir cudurka qaba. Saameyntuna waxay socotay wax ka yar 5 daqiiqo. Inkastoo ay xadidahaasi jiraan, Morgan weli wuxuu sii waday isku daygiisa. Nooc kasta oo cusub oo serumka ah waxaa lagu duraa Janet. Wuxuu rajeynayaa inay mar uun dib ugu soo laabato xaaladii bini'aadamka. Dhanka kale, kooxdu waxay sii wadaan raadinta patient zero. Maalin maalmaha ka mid ah, qalad uu sameeyey askari ayaa u oggolaanaya qof cudurka qaba inuu baxsado. Askari ayaa khatar galay. Scott ayaa si degdeg ah ugu ordaya inuu caawiyo, laakiin qofka cudurka qaba ayaa gacanta ka qaniinay. Morgan iyo Colonel Knox ayaa isla markiiba ka jiiday, waxayna si degdeg ah ugu qaadeen qolka qalinka. Waqti suuxdin loogu sameeyo ma jiro. Gina isla goobta ay gacanta kaga jaraysaa. Hawsha oo dhan waxay ku dhamaanaysaa wax ka yar 90 ilbiriqsi. Scott wax calaamad ah oo cudurka ugu bedelanayo ma muujin. Qof walba wuxuu dareemay nafis, laakiin Scott ayaa si lama filaan ah u bilaabay gariir. Tani waa calaamad halis ah. Wuxuu ku dhow yahay inuu isu bedelo qof cudurka qaba. Knox wuxuu amrayaa kooxda inay qabato oo xakamayso, wuuna qaaday cudurka. Isla markii uu istaago, Knox ayaa qoriga ku riday. Patient zero weli lama helin. Hadda kooxdu waxay weyday cilmi-baare kale. Tani waxay dhammaantood ku tahay dharbaaxo culus, laakiin howlgalku waa inuu sii socdaa. Intii lagu jiray baaritaan kale, Morgan wuxuu ogaaday arrin muhiim ah. Labadii qof ee ugu horeeyay ee cudurka qaaday waxay ka yimaadeen isla goob. Gina waxay ka shakisay in goobtaasi ay tahay meesha uu cudurku ka bilowday. Waxaa suurtagal ah in patient zero uu halkaas joogo. Waxay General Pierce ku qancisay inuu baaritaanka ku ballaariyo goobtaas, laakiin Knox si cad ayuu u diiday. Ma doonayo inuu khatar geliyo nolosha askartiisa. Gina way ku adkeysanaysaa. Tani waa fursadooda kaliya. Waqtiguna wuu sii dhamaanayaa. Dadka cudurka qaba way isbedelayaan. Hadda way ka caqli badan yihiin sidii hore. Wacyigooda wadajirkana wuu sii xoogeysanayaa. Saldhiggu wuu qarsoon yahay, laakiin in la ogaado meesha uu ku yaal waa arrin waqti uun ku eg. General Pierce ayaa arrintan ka walacsan. Ugu dambeyn, wuu oggolaaday qorshahooda, wuxuuna Knox ku amrayaa inuu isla markiiba diyaariyo howlgalka baaritaanka. Dhowr askari ayaa ku dhintay howlgalka. Intii uu qof walba ku mashquulsanaa meydka, cidina ma dareemin waxyaab leh. Qof cudurka qaba ayaa iska dhigay meyd, wuxuuna si qarsoodi ah ugu dhex dhuuntay saldhigga.
askari ayaa isla goobta lagu qaniinay. Weerarkan lama filaanka ah wuxuu qof walba ka dhigay mid aan diyaar u ahayn. Saldhiggu wuxuu hal mar waayay dhowr qof. Knox si degdeg ah ayuu uga falceliyay, wuxuuna qabsaday bistooladiisa isaga oo diyaar u ah inuu dagaalamo. Laakiin saaxiibkiisa oo cudurka isku beddelay ayaa gadaal kaga soo booday. Knox wuxuu toogtay saaxiibkiisa, mana haysto doorasho kale. Qofkii cudurka qabay ayaa mar kale meel aan la filaynin ka soo muuqday. Knox ayuu dhulka ku dhejiyay. Morgan ayaa waqtigii ugu dambeeyay soo gaaray, wuxuuna xakameeyay qofka cudurka qaba. Knox oo aad u xanaaqsan wuxuu doonayay inuu isla goobta ku dilo, laakiin Morgan ayaa joojiyay. Qofkan cudurka qaba wuxuu u muuqdaa inuu doonayo inuu hadlo. Waa macallinkii bilowgay sheekada, qofkii ugu horreeyay ee cudurka isu beddelay. Si ka duwan dadka kale ee cudurka qaba, macallinku si aan caadi ahayn ayuu u degan yahay, muusiguna wax saameyn ah kuma laha. Xitaa wuxuu weydiisanayaa sigaar ka hor inta Morgan uusan bilaabin su'aalihiisa.